الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين maanta ay anagoo ah dhalinyarada degmada Maxamuud Haybe iyo Maxamuud Haybe iyo xaafadda Masallahaba waxaanu ka hadlaynaa wadada qabiyowday ee ku qabiyowday dowladda hoose ee magaalada Hargeysa 25 xildhibaan waxay yiraahdeen waxaan dhameystiraynaa saldhigga dhexe ilaa iyo madaarka caasimadda Hargeysa maanta wada ogtiin qof wala oo xoogaali in uu wadadu halkay ku taagan tahay ay yiraahdeen contribution ka soo bixiyaan dadka xaafaddu sallaxlay wadada sallaxlay dawladdu waxba lama qaban dawladda dhexe ayuunbaa in yar ka bixisay waxaanu leenahay annagoo ah dhalinyaradii degmada Maxamuud Haybe Maxamed Mooge intaba annagoo ah waxaanu leenahay wadadii sideedii ha u socoto mise waxa dhaboobeysa in ay caasimadda u baahan tahay laba maayir sidii raggii hore ay sheegeen waxaanu leenahay haddii wadada la dhameystiri waayo laba maayir baan dalka u samayn doonaa insha Allah bismillaah tacaala waana ku guuldareystaan inay wadada dhameystiraan 25 xildhibaan ee la soo doorteen dadka reer Somaliland waa maasantihiin dhammaan dadka daawanaya بسم الله الرحمن الرحيم شركة جرايد wuxuu daaran yahay wadada faras magaalaha aan oran karo waa wajiga umada waa halbowlihii dalka waa faras magaalihii dalka waa wadadii international community soo mareysay waa wadadii ictiraafka Soomaaliland soo marayay in la siyaasadeeyo oo runtii lagu shaabadeeyo in ama loo kooto lagu xiro reer oo la yiraahdo reerkaasi runtii in hakena lacagta wadada waa nuqsaan laga filayno golaha deegaanka arrinka caynkaas oo kala ah waxaan ugu baaqayaa shacabka bartamaha bariga koonfurta iyo bariga magaalada Hargeysa in maalmahan soo socda ay isugu iman doonaan shir weyne ay kaga arrinsan doonaan golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa shirkaasi waxa ka soo qayb gali doona madax dhaqameedka muqaasha siyaasiyiinta dhalinyarada waxaana shirkaas runtii focuska ku saari doona ama lagu la fakuri doona baahiyaha kala gedisna deegaanka ku xeeran shirkaas wuxuu daaran yahay afar qodob kow in degmada Maxamed Mooge iyo Maxamuud Haybe oo ah laf dhabarta ama halbowlaha degmooyinka sida degmo ee magaalada oo runtii cashuur aad iyo aad u badan runtii ay ka soo xarooto in dadkaasi cashuurtooda ay u tashadaan oo laba guri runtii laga kireeyay labada degmo oo dadku oo la sameeyay maamul madax iyo majale oo tiradoodu tahay 25 xubnood kuwaas oo laga xisaabtami doono baahiyaha kala gedisna deegaanka ku xeeran qodobka labaad waxa la sameyn doonaa website weyn oo qurbajooga reerka ku soo xidhi doonaan oo ay ka dheehan doonaan hawsha loo kacay ee dhexda loo xidhay ee runtii wax loogu qabanayo deegaanka waxaan runtii mar labaad iyo mar saddexaad aan hawada u marinayaa maayirka caasimadda Hargeysa oo fal runtii foolxun ku degdegay oo mustaqbalkiisa shaabad ku ah inuu kala saaro inay wadadu tahay wada qabiil iyo wada qaran